السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمانتين وادين السلام من كستو دنيا كجوجتان كسو دوادا channel كين ولا شينا وما أحلام channel فضلنا هذا نقول عصبتي سبسكرايب صار هدي هورين اللي جوجتي لايك كومنت شير. أصحابتا وحان إذن لا هاي أصحابتا أحلام أبايال بدنا يسوي دي داوين أنجلية ما شاء الله هذا حسنتين. إن شاء الله جوابتينا ما أنتوا أيها ليسين أنتوا إلهي هذا هذا فيديو وصدوه جوابتينا إن شاء الله أنت أقانو تقدر ما هي يعني لكن أنت كريكرو أنت أقانو ما دام أنا صوبرتي إيش قدي أموريسو مرك أصحابتي إذا إيش قدي داوين كانوا حكا أقانا إن شاء الله تقدر وين ما هي لكني وحكا صوبرتي مرك أصحابتي إذا إيه وتجاوين بدن أنسميه marka oo aan ku guuleystay sidaas aaweeda u soo qaatay marka abaayaal badan ay soo weydiiyay marka waad ku mahadsantiin isoo weydiiseen mar walba waxaan diyaar u ahay jawaabtiina inaad iga heshiin marka asxaabteedii aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayaa marka insha Allah daawooyinka soo qaatay qaabka soo qaatay waxay yihiin insha Allah la socod wanaagsan hadda horta waxaan ku hormarinaynaa waxaan soo qaadanaa commentiyadii gabdhaha walaalihii soo qoreen oo ugu farcilina insha Allah dullah yiraahdo maanta hadda waxa ka hadli rabaa gabadhan abaayadana waxay dhahday abaay noo sheeg daawooyinka uurka lagu abaay noo sheeg ma sha Allah walaal waxaan rabnaa usbuucyada uurka lagu qaado nala wadaag abaayo insha Allah inta ka aqaana ku sheega dullah yiraahdo usbuuca u horeeyo oo dhiiga maalinka kugu horeyso dhiiga ka bilaabaysa xisaabaysa ilaa maalinka 14 maalinka 14 ilaa maalinka 18 inta u dhaxayso insha Allah haduu ilaa yiraahdo muhiim ilaaha bixiyo ilmaha marka say sheegayaan taqaatirta waxay u badan tahay uurka in lagu kala qaado usbuuca horeeyo horta oo dhiiga mara dhiig qabta waay usbuuca ku xigana waxa waa ii sheegay mar oo ukumihii way soo daateen dhiigay naqdeen marka ukumihii hadana mar labaad ay soo kubcayaan ay diyaar u yihiin intay soo daadanin laba usbuuc marka lagu leeyahay laba week waa maalinka dhiig ku imaado ilaa laba week 14 waay marka 14 ma cisho waay marka habeenka 14 ay tahay mis maalinka 14 ay tahay waa loo badiyaa maalinkaas maalinka 15 iyo maalinka 16 iyo maalinka 17 iyo maalinka 18 intaas wixii kadib dhiig asagaab imaanay hadii ilaaha la kulmiyana asagaab baxayaba qeyrkiisu la baxaa insha Allah asxaabteeda marka taas mawduucaasna marka la soo qaadan doona ayagoo ii sheegay oo gabdhaha waxaan ka codsanaa inay sameystaan jadwal inay sameystaan buugaag inay sameystaan ay qoraan waxaan waa la iloowa jadwal la sameysana buug oo markasta adiga waxa muhiimka ku ah ku qoranaysa la sameysana qalina la soo qaadana maalinka dhiig ku imaadaba maalinka horeysa waa la qoraa bis maalinkaas taariikhda qore bis maalinkaas ku imaaday taariikhdii qortay bis maalinka marka ii sheegay oo maalinka ii sheegay 14 ku aadan tahay marka meeshaas ka fiirnay hada xisaabsan kartiin qalbiga ka xisaabsan kartiin ka xisaabsanaysa marka 14 ilaa 18 waa loo badiyaa insha Allah ilaaha bixiyo ilaahana wada siiyo walaalahayga iisha inta qaban ilaaha siiyo wadka waa hiba ilaaha bixiyo qofka oo aan ilmaha la siinin ilaahay ma necbo ilaahay wuxuu ugu abaal gudaa wuxuu ugu talagalay marka inta la siiyana ayagana ii sheegay raaci waa la raaciyay ayagana booskood inay ka soo baxaan inay ka soo bixi waa intaas bis waay adduunka insha Allah adduunkan wax weyn ma ahan ilaahay waxaan soo marin adi ma arkaysid marka insha Allah waa u duceynaa gabdhaha baayaasha kulli oo dhan ilaahay hana wada siiyo ilaahay idin wada siiyo insha Allah haduu ilaahay yiraahdo marka ay sheegay mawduucaas kaas commentigaas abaayada si soo qortay meesha uga tagay marka waxa soo qaadanaa commentiga kala soo qaadanaa doctoraysa noo soo badi mawduucyadan oo kale abaaya doctoraysa ma laakiin doctoraysa u dhawahay insha Allah oo malisa ahay aan soo bartay marka abaaya ay sheegay thank you aad u mahadsantahay insha Allah daawooyinkan waxa ka bartay waxna waa tijaabiye waa arkay marka abaay adna ii sheegay taasaan jawaabta taas waaye waa Sacdiyo Sheekh Axmed abaay macaan thank you aad u mahadsantahay aadan abaalkaaga haya commentigaaga waana ku faraxsanahay inaan ku soo jawaabo oo mar walba waxaan diyaar u ahay inaan idin qanciyo asxaabta igu xiran dhamaantiinaba waxaan idin leeyahay farxadiina waa farxadeed insha Allah jawaabta waxba uma arko inaan ka soo jawaabo way soo weydiin kartiin dalabaadka xaqiina waa insha Allah
commentigaas abaayadaas meesha ugu baxa insha Allah. hadana waxaan soo qaadanaa Caasho Cumar abaayo adna commentigaaga waa soo qaatay maasha Allah thanks haddaan kusoo biiray channelkas thanks abaayo mar labaad mar saddexaad waa ku mahadcelina kusoo biir channelka walaashaada Mama Axlaam channel gacmo furan kusoo dhawo abaayo waxaa naga helaysaa waji furan iyo talooyin caafimaad insha Allah abaayo macaan aadan kaaga mahadina Caasho thank you waxaan soo qaadanaa insha Allah commentiga kale Muxudiin waa wiil insha Allah asagana waa ugu jawaaba haduu Ilaahay yiraahdo wuxuu isoo weydiiyay daawadan falogalbiin ka wax iga weydiiyay wuxuu dhahay abaayo naagtayda nuujinaysa ma siin karaa abaayo naagtayda nuujinaysa ma siin karaa mise ma siin karo maxaa u taray abu adna taas waa kaaga jawaaba insha Allah daawadaas waa siin kartaa daawadaas maasha Allah waxay u fiican tahay adii cunugeeba idin fiican gabadha nuujinaysi cunugeeda u fiican yahay maasha Allah waa la soo siiyaa naaga isbitaalada waaweyn kata naagaha markay dhalaan waa la soo siiyaa cunuguna nafaqo ka helaa hooyadan ii sheegay iron badan ku jiro marka gabadhna ayda nafaqay ka helaysaa inta ayda dhalina insha Allah inta ayda dhalina maasha Allah way ka faa'iideysaa fooshi iyo u fududeyna haduu Ilaahay yiraahdo kaniinigan faa'iidooyin badan asaga lagu sheegay falogalbiin gadaal u raaci kartiin YouTube-kayga si fiican uga hadlay marka ii sheegay waa ku mahadsan tahay farcilintaada marka ii sheegay naagta day nuujinaysa aad iyo aad ugu fiican yahay very important waaye nuujinta iyo hooyadiiba wuxuu u taraa insha Allah Allah noogu daro daawo haduu Ilaahay yiraahdo walaalkay asagana ii sheegay xagga ugu baxa asagana walaalkay xagga ugu baxa commentigiisa marka asxaabteeda waa balan inaan soo qaato commentiyadiina oo waxaa rabtiin in aan ka jawaabo balan waaye asxaabteeda dhamaantiina marka waxaan idin leeyahay asxaabta waan idin salaamaa waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaada waxaan idin la hadlaysaa walaashiina Axlaam channel badan channelka subscribe